السلام عليكم اسكو soo noqod wanaagsan maanta waxaynu qaadan doonaa maadada anatomiga 10kii 12aad 10kan maanta waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim ah kaas oo ah pelvic gill waxaynu ku baran doonaa laba qodob labadaas qodob oo kala bonus of pelvic gill iyo waxaynu ku baran doonaa anatomical structure ka ilayhi waxaan rajeynayaa dhamaadka 10kan inaad la gaari doontid biidhnillaahi jalla wa ala haddaynu bilaawno qaybta koowaad ee 10keena maanta oo ah bonus of pelvic gill waxaa loo qaybiyaa saddex lafood oo kala ah ilium, ischium iyo pubic saddexdaas lafood waxa ay inta badan sameeyaan ama markay isu tagaan ay sameeyaan waxa loo yaqaan misgaha ama lafta ay loo yaqaan pelvic bone-ka haddaynu u gudubno qaybta labaad waxaynu kaga hadli doonaa qaybta labaadna waxaynu ku baran doonaa anatomical structure marka waxa uu noqon doonaa video kooban oo socon doona daqiiqado yar waxaan rajeynayaa inaad daawan doontid si aad u fahantid anatomical structure ay leeyihiin lafahani aynu soo sheegnay oo loo yaqaano pelvic gill waxaynu u fiirin doonaa laba qaabood qaab waa waxaynu u fiirin doonaa medial view qaabka kalena waxaynu u fiirin doonaa lateral view haddii aynu u fiirino qaybtani medial view-ga qaybta soo xigta jirka qaybtiisa dhexe waxay noqon doontaa sidani qaybta kore waxaynu ku arkaynaa ama nooga muuqataba lafta loo yaqaano ilium bone labada laf ee qaybta hoose inoo muuqda labada kala leh lafta kalarka buluuga leh waa lafta loo yaqaano ischium halka lafta kalarka gaduudan lehna loo yaqaano pubic bone structure-da qaybta kore jira khaasatan ay leedahay laftan iliaga medial view markaynu ku fiirino waxay noqon doontaa sida tan structure-ka koowaad waa anterior superior iliac spine oo isagana qaybta dhanka kale ee posterior inferior iliac spine waxay kaloo ay leedahay qaybtani dhexe oo sida garbaha shimbiraha oo kale loo yaqaano wing ama ala of ilium ayaa loo yaqaanaa good ku yaala meeshaasna waxaa loo yaqaanaa iliac fossa structure-dan waxaa kaloo soo raacay iliac tuberosity anterior inferior iliac spine arcuate line iliac pubic eminence iyo auricular surface fossacrum auricular surface-kan marka waxa ay kala midowdaa laftani ka mid ah spine-ka ama column-ka loo yaqaano sacrum-ka waa meesha ay kala dhigto ama ay kula midoobaan kaloo la jira greater sciatic notch structure-da ay leedahay marka halkaasi ayaynu kaga gudbaynaa laftan pubic-gan hadday usoo noqono waxay leedahay iyadana laba pubic ramus oo kala ah superior pubic ramus iyo inferior pubic ramus waxaa kaloo jira pubic tubercle jira pectinal line oo loo yaqaano pectin pubis isophageal surface iyo obturator groove obturator foramen-kana waa godka oo hip bone-ka leeyahay ama laftan loo yaqaano pelvic bone-ka ay kala midoodo ama ay kaga dhigtoba laftii loo yaqaanay femur-ka oo ahayd lafta cajarka ischial bone-kana waxa ugu muhiimsan shan structure oo kala ah ischial spine laser sciatic notch body of ischium iyo ischial tuberosity qaybta lateralka haddaynu u fiirino ilium structure-da ay leeyahay waxaa ka mid ah gluteal lines oo loo kala qaybiyo anterior inferior iyo posterior gluteal lines ayaa jiro waxaa kaloo jiro iliac crest oo iyadan loo qaybiyo intermediate line tubercle iyo external line wing anala oo aan hor usoo aragnay qaybtii hore iyadana waa lagu tiriyaa qaybtani dambena waa lagu arkaa waxaa kaloo ay leedahay anterior superior iliac spine anterior inferior iliac spine waxay kaloo leedahay acetabulum waxay kaloo leedahay body of ilium greater sciatic notch posterior inferior iliac spine posterior superior iliac spine dhammaan structure-daas aynu sheegnay waxay gaar u yihiin iliac bone ischium bone-na structure-radii aynu kusoo aragnay medial view-ga unbay leedahay waxba kama duwana markii loo fiiriyo view-ga haddaynu fiirino qaybtani pubic bone-kana waxaa kaliya kusoo ziyaaday ramaska waa uu lahaa superior pubic ramus iyo inferior pubic ramus hore uu lahaa obturator crest iyo waxaa dheeri ku ah margin oo limbs loo yaqaano superior pubic ramus pubic tubercle horeynu usoo aragnay obturator crest iyo inferior pubic ramus waxaynu isla soo gaarnay dhamaadka 10keena waxaan rajeynayaa 10kii maanta inaad wax badan ka fahantay haddii ay jiraan wax inay dhiman yihiin qaybta hoose ee commentiga inoogu reeb 10kani 10ka xigeenteenu ku kulmayno waxaynu kaga tegayaa assalaamu calaykum